danajira Roda Jaamac Cilmi iyo Waftiga ballaaran ee horkacayso oo ay xubna ka ahaayeen sarkaal sare oo dhinaca caafimaadka oo ka socda dalka Sweden iyo xildhibaan Cabdilaki oo isaguna ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco iyo madaxa waaxda wacyigelinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer mudane aadan maray ayaa wafdiga oo ay booqashadoodu ahayd xog ururin ay ugu kurgalayaan xaaladaha guud iyo baahiyaadka iyo duruufaha ku gadaaman magaalooyinka ay booqashada ku tageen ayaa wafdigu waxa uu booqashadiisa ka bilaabay magaalada Taallabuur halkaasi oo dadka reer Taallabuur ay wafdiga uga warbixiyeen duruufaha iyo baahiyaadka ku gadaaman magaalada Taallabuur ay jecel yihiin in wax laga qabto taasi oo ay ugu horeysiyeen balliga magaalada oo ay tilmaameen in uu ku soo fataho xilliyada roobabku ay ka da'aan magaalada wafdigu ku guda jiray booqashada magaalada Taallabuur oo TV-ga qaranku waraysi kooban la yeeshay maamulaha dugsiga magaalada Taallabuur ayaa maamulaha dugsigaasi waxa uu telefishinka qaranka uga warbixiyay baahiyaadka iyo duruufaha ku gadaaman dugsigaasi iyo waliba horumarka uu dugsigu intii uu jiray ku tallaabsaday xarunta xanaanada magaalada balidhiig oo wafdiguna uu booqasho ku gaadhay iyadana ayaa howlwadeenada xaruntaasi waxa ay wafdiga uga warbixiyeen baahida ugu weyneed haysata xaruntani caafimaad inay tahay koronto la'aan iyaga oo sheegay in xilliga habeenkiina haweenka umulaya ay u adeegsadaan tooshasha intaa kadib waxa uu wafdigu u gudbay magaalada Dheryeley oo qadar kooban uu ku sii hakaday halkaasi oo iyagana uu xog ururin kaga helay dhinaca baahiyaadka magaalada Dheryeley ka jira wafdiga oo booqashadiisii ugu dambeysay ku soo maray magaalada taariikhiga ee Dhagaxdheer ayaa dadka reer Dhagaxdheer oo iyaga lagu tilmaamo in ay leeyihiin taariikh fog oo dhinaca xadaaradda waxa ay wafdiga kaga hor yimaadeen sabadka hore ee magaalada iyagoo si ballaaran ugu soo galbiyay gudaha magaalada markii gudaha magaalada loo soo gudbayna si ballaaran ugu soo dhaweeyay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka سعيد حسين ريراش تلفزيون كقرقة جمهورية Somaliland